madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo maamulka gobolka Shabeellada Hoose xilku qaadis Kusubi kaasoo ka horeeyay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Abduqaadir Nuur Siidi iyo ku-xigeenka amniga madaxweyne Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo saasoo kale maamul cusub magacaawi gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Abdiraxiin Nuur wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo magacaawi gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Hoose iyadoo ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellada Hoose laga magacaawi Axmed Cumar dekreetadu xukuumadda xafiiska madaxweynaha ee la magacaawi maamulka cusub gobolka Shabeellada Hoose xilkana lagu qaaday maamulkii hore ee gobolka ay warbaahinta dowladda ku warbiyay agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada Koonfur Galbeed Maxamed Ali Ibrahim Bandhawow bismillaahir rahmaanir rahiim maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 18 Oktoobar sanada 2022 madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa xilka qaadis ku sameeyay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Abduqaadir Nuur Siidi iyo sidoo kale gudoomiyaha ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Hoose dhanka kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Abdicasiis Laftagareen ayaa warqad sumadeedu ay tahay eber 18 Oktoobar kuna saabsan magacaabid gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka soo saaray xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu uu arkay dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisii koowaad markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyay aqoonta iyo aragnimada mudanaha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu madaxweynaha Abdicasiis soo saaray xeer madaxweyne laga bilaabo maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 18 Oktoobar sanada 2022 wuxuu madaxweynaha magacaabay Mudane Maxamed Abdiraxiin Nuur in uu noqdo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose qodobkan ayaa dhaqangal noqon doona markuu saxiix madaxweynaha Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya uuna saxiixay wabillahi tawfiiq dhanka kale magacaabid gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose xeer madaxweyne tiro nambarkeedu yahay eber 18 Oktoobar kuna saabsan magacaabid gudoomiyaha ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisii koowaad markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyay aqoontii iyo aragnimada mudanaha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan laga bilaabo maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 18 Oktoobar sanada 2022 wuxuu madaxweynaha magacaabay Mudane Axmed Cumar Maxamed in uu noqdo gudoomiyaha ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Hoose xeerkan ayaa sidoo kale dhaqangal noqon doona markuu saxiix madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya uuna saxiixay wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Faisal Maxamed Isa TV-ga iyo raadiyaha Koonfur Galbeed Baydhabo